Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Idilahantiin ba meel kasto daafaha dunida naga daawanaysaan kuna soo dhawaada wararka caalamka iyo dalka idinkaga imanaya stuudiyaha TV-ga qaranka Soomaaliyeed ee magaalada London. Wararkana waxa soo jeedinaya anigoo Cabdillaahi Xuseen Mariya. Wararka aan idin haynana waxa ugu dooran madaxweynaha dawladda ku meel gaarka mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo maanta magacaabay gudoomiyaha bangiga horumarinta Soomaaliyeed oo magacaabay Cabdullaahi Axmed Afrax oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka dawladda ku meel gaarka iyo ra'iisul wasaare Cabdiwali Cali Gaas oo maanta dib ugu soo laabtay caasimadda wadanka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho kadib markii uu muddo dibadda ugu maqnaa safar shaqo iyo kulan looga hadlayay sugidda amniga oo ka dhacay beerta Sheekh Said ee magaalada Afgooye kulankaas oo ay ka soo qayb galeen madaxda ciidamada ammaanka dawladda ku meel gaarka iyo dadweynaha degmadaasi iyo waliba xildhibaano iyo waxgarad ka soo jeeda koonfurta wadanka Soomaaliya ugu baaqay hay'adaha samafalka in ay gargaar la gaaraan goobaha laga xoreeyay ururka gobolkiisu sii dhacay ee Al-Shabaab wararka caalamka aan idin haynana waxa kamid ah ku dhawaad 60 qof oo u dhashay wadanka Nigeria ayaa ku qudwaayay bartamaha wadanka Nigeria kadib markii ay si ba'an dagaal qabiili isugu dhufteen qaar kamid ah qabiilaadka daga bartamaha wadanka Nigeria iyo magaalada Homs ee wadanka Syria oo holcaysa iyo madaxweynaha wadanka Masar ee cusub Maxamed Mursi oo maanta ka qayb galay caasimadda wadanka Masar ee Qaahira xaflad qalin jabin oo koox ciidamo military sameynayeen isla markaana ka hadlay go'aankiisii uu dib isugu yeerayay baarlamaanka wadanka Masar ee ay ciidamadii majaraha talada wadanka hayay kala direen intaasi waa qodobadii warka u door corona haatan se isaga fidsan madaxweynaha dawladda ku meel gaarka mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta magacaabay gudoomiyaha bangiga horumarinta Soomaaliyeed oo uu magacaabay Cabdullaahi Axmed Afrax oo ka tirsan xildhibaanada dawladda ku meel gaarka warbixin umuurta ku saabsan waxa inoo haya wariyaha iyaga magaalada Muqdisho Bashiir Khaliif Gaani ra'iisul wasaaraha dawladda ku meel gaarka oo in muddo dibadda ugu maqnaa safar shaqo ayaa maanta dib ugu soo laabtay caasimadda wadanka wariye Cabdisalaam Daacad ayaa iyana umuurtan eegaya waxgarad ka soo jeeda koonfurta wadanka Soomaaliya iyo xildhibaano iyagu ka tirsan baarlamaanka dawladda ku meel gaarka oo iyana ka soo jeeda koonfurta ayaa ugu baaqay hay'adaha samafalka caalamka in gargaar degdeg ah ay la gaaraan goobaha laga xoreeyay waa sida ay hadalka u dhigeen ururka gobolkiisu sii dhacay ee la yiraahdo Al-Shabaab wariye Ilhaan Cabdisalaam Barre ayaa umuurtan ka faaloonaysa kulan looga hadlayay sugidda amniga magaalada Afgooye oo ay ka soo qayb galeen dadweynaha degmadaas iyo madaxda ciidamada ammaanka dawladda ku meel gaarka ayaa maanta lagu qabtay beerta Sheekh Said ee dhacda bartamaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose wariye Hindiya Maxamed Xaaji ayaa inoo haysa umuurtaas madaxweynaha wadanka Masar Maxamed Mursi ayaa maanta ka qayb galay xaflad lagu qabtay caasimadda wadankaas Qaahira xafladaas oo loo qabtay koox arday ama ciidamo ka qalin jabinaya kulliyad military ah isagoo isla markaana ka hadlay go'aankiisii uu dib isugu yeeray baarlamaanka ama Lower House waxa la yiraahdo aqalka wadankaas oo ay ciidamadii majaraha talada wadanka hayay ee uu hogaaminayay General Tantawi hore u kala direen Maxamed Mursi ayaa sheegay in wadankiisu uu yahay wadan dimuqraadi ah sida darteedna maadaama aan ku imid biyiri one man one vote waxa loo yaqaan marnaba lagama yaabo in aan cadaadiyo ama aan kala diro ama aan agta saaro biyiri wax allaale iyo wixii dimuqraadiyadda wadankan oo aan in muddo waligeed one man one vote laga sameyn aan hor istaaga biyiri Mursi oo isagu aad iyo aad u faraxsanaa markii uu xafladda ka hadlayay ayaa sheegay in ay militarigu yihiin halbowlaha amaba wadnaha wadankaas haga hase ahaatee lagama maarmaan ay tahay buu yidhi talada in ay la wareegaan dadka shicibka ah oo dawlad shiciba oo dadka u daacada la helo halka warkaas idinkaga imanaya waa stuudiyaha TV-ga qaranka Soomaaliyeed ee magaalada London dhanka kalena wadanka Syria magaalada la yiraahdo Homs ay ku badan yihiin dadka iyagu ka soo horjeeda ama mucaaradka ku ah madaxweyne Bashar al-Assad ayaa laga soo duubay aflaan ama video
videogaas oo ay ka muuqdato amaba muuqaal ahaan tusinaya ciidamada wadanka Syria oo si ba'an madaafiic amaba tanks waxa la yiraahdo ugu duqeynaya magaaladaas. ilaa iyo hadda ayaan la kala cadayn inta dhimasho iyo dhaawac kala gaadhay dadka ku dhaqan amaba ciidamada mucaaradka iyagu ku dhumaalaysanaya magaalada Homs oo ay ku hareeraysan yihiin ciidamada wadankaas iyagoo daacad u ah madaxweynaha mayalka adag ee Bashar al-Assad. Bashar al-Assad ayaa maanta waxa ay gaadhay bishii 16 oo 1 sano iyo 4 bilood kadib markii rabshado ba'ani ay ka dilaaceen wadankiisa, kuwaas oo ay dadweynaha wadanka reer Syria higsanayaan baa la yidhi waxa loo yaqaan Arab Spring ee iyagu ka tuuray majaraha talada madaxweynayaashii bariga dhexe ee uu ka mid ahaa bin Ali Tunisia, Ali Abdullah Saleh Yemen, Hosni Mubarak Masar iyo Muammar al-Gaddafi wadanka Liibiya. hadduu eebba idmana tan iyo intaynu dib ugu kulmi doono warkan iyo mid lamid ah oo aan idin qaadaa dhigaya anigoo Cabdillaahi Xuseen Maariya waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.